dowladda UK ayaa qorsheynaysa in ay joojiso racfaanada ay qaataan dadka magangelya doonka ee dalkaasi ku galay doomaha yaryar. Ra'iisul Wasaaraha UK Rishi Sunak ayaa sheegay inay u baahan yihiin sidii ay waqtigan u joojin lahaayeen dadka magangelya doonka ee ka gudba kanaalka ayagoo wato doomo yaryar si ay racfaan ugu qaataan musaafiriinta. Xafiiska arrimaha gudaha ayaa soo bandhigtay laba ikhtiyaar oo loogu talagalay tixgelinta Ra'iisul Wasaaraha UK isagoo isku dayayay inuu si toos ah ugu hortago kuwa imaanaya Britain in ay dalbadaan magangelyo. Waxaa la fahamsan yahay in hal soo jeedin ay tahay in laga noqdo xaqa ay dadka u leeyihiin inay racfaan ka qaataan ka saaritaankooda tooska ah ee nidaamka magangelya doonka. Qorshaha kale, dadka ku imaanaya doomaha yaryar waxaa loo ogolaan doonaa oo kaliya inay racfaan ka qaataan kadib markii hore loo tarxiilay ay dib ugu soo noqdeen dalka UK. Dowladda UK ayaa la fahamsan yahay inay ka shaqeynayso sharci qabyo oo ka mamnuucaya magangelya doonka inay adeegsadaan sharciga xuquuqul insaanka si looga fogaado in la tarxiilo. Qaxootiga hadda waxay awoodaan inay sheegtaan in lagu xadgudbay xuquuqda nolosha iyo midda qoyska. Wareysi uu siiyay Talka TV, Ra'iisul Wasaaraha UK Rishi Sunak waxa uu ku sheegay in sharcigan uu siin doono dowladda awood ay ku xiraan muhaajiriinta ay ugu celiyaan dalkooda hooyo ama waddan saddexaad sida Rwanda. Dhanka kale, dowladda Pakistan oo dalkeeda ka mamnuucday adeegyada Wikipedia. Hay'adda maamusha isgaarsiinta ee dalka Pakistan ayaa ka xanibtay barta lagu keediyo qoraalada ee Wikipedia dalkaasi, ayadoo hay'addu sheegtay inay ku guuldareysatay Wikipedia inay maxfaladeeda ka saarto waxyaabaha aflagaadada ah, inkastoo digniino hore loo jeediyey. Afhayeen u hadlay ayaa sheegay in go'aankan hay'adda dib u eegis lagu sameyn karo haddii wax walba meesha ay ka saarto waxa uu macluumaadka ah ee xiisadda keenay. Hay'adda Wikimedia ee fadhigeedu yahay dalka Mareykanka ayaa sheegtay in mamnuuciddan ay ku dhaqaaqda dowladda dalka shanaad ee adduunka ugu dadka badan inay helayaan keedka ugu badan ee aqoonta bilaashka ah. Mid ka mid ah dadka u dhaqaaqa xuquuqda dijitaalka ee dalka Pakistan ayaa ku tilmaamay mamnuucistaasi mid aan u dhaqmin waxa la luminayo oo aan dastuuri ahayn. Shirkadaha caanka ee Facebook iyo YouTube ayaa hore loo xayiray qoraallo loo arkay inay yihiin aflagaado iyo arrimo kale oo xasaasi ah dalka Pakistan oo dadkiisa ay u badan yihiin muslimiin. Dhanka Ethiopia, Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa wadahadalo fool la yeeshay hoggaanka jabhadda TPLF ee gobolka Tigray kadib markii uu siixay heshiis nabadeed oo lagu soo afjarayo colaadda dalkaasi. Ra'iisul Wasaaraha oo kulankaas la qaatay saraakiisha sarsare ee ciidamada Tigrayga ayaa ka dhacay goob loo dalxiis tago oo koonfurta dalkaasi ku taalo. La taliyaha amniga qaranka ayaa bartiisa Twitterka ku sheegay in Ra'iisul Wasaaraha wafdiga TPL kala hadlay horumarka geedi socodka nabadda. Dowladda Ethiopia iyo TPLF ayaa labadii bishii November ee sanadkii tagay magaalada Pretoria ee dalka Koonfur Afrika ku kala seexday heshiis lagu soo afjarayo dagaalka muddada labada sano ka socday dalkaasi. TPLF ayaa aqbashay in hubka dhigis lagu sameeyo, taasi beddelkeedana ay dowladdu dib u fasaxi doonto adeegyadii dowladda ee gobolkaasi. Colaadda waqooyiga Ethiopia ayaa galaaftay nolosha kumanaan qof, iyadoo malaayiin kalena ay ku barakaceen, halka dad badan ay macluul qarka u fuleen. Waad ku mahadsantahay la socodka barnaamijyada iyo wararka aan soo geliyo boggayga YouTube-ka Kulmiye Tube.